kusoo dhawaada dhageystayaal qaybtii saddexaad sheekadii abaalmarin jacayl waxaana ay qaybta saddexaad ku bilaabanaysaa hilowle markii uu habeenkii aqalkoodii tagay wuxuu la kulmay aabihii xaaji xasan oo jardiinada gurigooda ku fadhiya tusbax dheerna ku tasbiixsanaya intuu jardiinadii dhinac kale kaga soo fariistay buu hadal uga bilaabay isagoo iska dhigaya mid war xiiso badan u haya aabihii magaaladii kuleyl baa lala joogi kari la'yahay shaatigani waa kii aan galabta xirtay haddana waad u jeedaa dhidid baa qooyey bari shaqadii laguma tagi karo waa inaan shaati kala xirtaa hilowle wuxuu soo warwareegaba aakhirkii si afgobaadsi leh buu ugu sheegay aabihii inay isbarteen gabar aad u qurux badan guurna ay ku heshiiyeen xaajigii weli waa aamusan yahay talow muxuu kuugu jawaabi doonaa ayuu isweydiinayaa hilowle wadnihiisii baa garaacii laba jibaaray oo saddex jibaaray wuxuu ka dhursugayaa jawaabta aabihii siin doono xaaji xasan waxyaqaan bisil buu ahaaye dhowr su'aalood oo midiba midda kale ka adag tahay buu wiilkiisii hordhigay gabadha ma tahay mid fiican reerkooda ma taqaan misna dhaqankooda waa sidee xaggay degan tahay yaa ku baray waan aqaanaa waa qof aad u fiican weligay qof lamida ma arkin nasiibkaa iskaayo baray iyadoo kale lama heli karo nin nasiib leh unbaa heli kara dhool hilowle jawaabtii laga sugayey ammaan buu ku harqiyey odaygii waa yaabay dhabankuu gacanta saaray inanka goorta la helay buu garan waayey isagoon hadal dambe ku celin buu yidhi haddii aad ku qanacsan tahay anigu wixii qarash ah ee arooskaaga ku baxaya waan kaa bixinayaa oo tusbixiisii iska sii watay hilowle intuu jardiinadii ka kacay buu gurigii galay oo sariirtiisii dhinac kaga fariistay hamigiisii jacayl baa sii kordhay koobadiinkii sariirta ag yiilay buu armaajadii furay buugaag tiradoodu 4 xabbo ahayd buu kii u korreeyey soo qabtay 2 baal markii uu akhriyey baa maankiisii dhool ku soo dhacday qub sariirta dhinaceedii intuu ku tuuray buuggii uu akhrinayay oo maryihii iska bixiyey ayuu sidii qof riyoonaya dhool la sheekaystay sheeko dheer baa dhex martay isagoo weli sidii ula sheekaysanaya buu seexday subaxnimadii hilowle markii uu toosay wuxuu aaday shaqadiisii markii uu warshada sifaynta batroolka tagayna xafiiskii uu ku qornaa oo howlo ka socdeen ayuu iska fariistay maalintii oo dhan xafiiska sawirkiisa unbaa ka muuqday isaga maskaxdiisii meel kale jirtay shaqaalihii xisaabaadka kula qornaa waxay la yaabeen mahsanaantiisa waxayse u maleynayeen in dhibaato kala haysato dhibaato kale ma haysanine dhool baa beer ubax leh uga dhex baaqaysay laba bari kadib hilowle wuxuu u tagay dhool isagoon weli hooyadii binti sabriye guurkiisa kala tashanin sababta uu ugu tagay waxay ahayd inuu u sheego in waalidkiis diyaar la yahay dhisidda aqalkiisa sidaa darteedna ay qoyskeeda soo barto dumar waa amaane iyadoo sii jeclaysanaysa hadalkiisii bay intay yara xishootay hoos u eegtay oo tiri habeenka isniinta xaafadda iigu imow si aan hooyo iyo aabbo isku kiin baro soona diyaar garow macaane hilowle intuu gacanteeda bidix aayar soo qabtay buu 3 jeer dhunkaday dhool owgeedii dhunkashadaasi waxay ku reebtay dareen gooni ah waayiradii jirkeeda ayaa istaabtay intuu dhankii qorax ka soo bax u dhaqaaqay buu gurigoodii aaday dhool waxa u cadaatay inay hilowle nolosha la qaybsan karto oo ay iyana reerkooda ku qanciso inay heshay ninkii ay dunida raadinaysay waqtigu dheera isniintu foga cadceedu may wareegto hilowle dhowrkii maalmood ee isniinta ka sokeeyay baa sanad kala batay hadday ugu dhowdahay waa jimco gelinkiisii dambe barina waa sabti saa dambana waa axad isniintuna way ku xigtaa
sidaas baa la rabaa intuu yiri buu kursi dheer oo qolkiisa hor yiilay ku dhacdiidsaday binti sabriye oo galabtaas odaygeeda casiriyihii ay u samaysay bakeeri ugu soo shubtay ayaa soo hormartay intii kale oo tarmuus dheer ku jirtayna intay qaaday bay xaaji xasan oo jardiinadii banaanka guriga fadhiyay u geysay agtiisana fariisatay sheekana u bilowday hilowle markii galownimadii isniinta la gaaray ayuu intuu labis qurxoon ku labistay taxi kireystay oo xaafadii dhool afka u saaray taxigii siduu u sii ordayay buu sartii gaabnayd ee rinjiga guduudan lahayd hor joogsaday wadihii taxiga intuu lacagtiisii gacanta ugu shubay buu iridii gargaraacay dhool way ogsooneyd saacadda ay ballamisay barandada qaybteeda hore ayay sidii qof shaqo ku haya ku marmarsiyoonaysay garaacistiisii bay maqashay tartiib bay albaabkii u furtay waa isaga laftigiisii dhool farxad bay ku qaabishay saaxiibkeed iyadoo leh ii waran aboowe si diiran bay u soo dhaweysay dhool qolkeedii baa la fariistay sheeko xiiso badan baa la galay ku dhowaad saacad iyo bar markay qolkii wada fadhiyeen bay dhool intay sara kacday qolkii kale ee ku xigay u wareegtay islaantii iyo odaygii oo arrimo u gaar ah ka sheekaysanaya bay soo waday horay ugu sheegtay wiilkan inay isbarteen markay u soo galeen bay intay hilowle farta ku fiiqday ku tiri waalidkeed hooyo iyo aabe barasho wanaagsan inankan waxa la yiraahdaa hilowle waana wiil aan dhawaan isbaranay ee iska barta oo dariishadii hoosteeda istaagtay barasho wanaagsan bay ka daba yiraahdeen iyagoo soo dhaweynaya hilowle dhool intay mar labaad baxday bay faanta qabow soo iibisay oo hilowle u keentay furkii intay ka furtay way gacanteedii ku siisay waa taas afka ugu shubaysa sidii ilmo yar oo caana la siinayo isaguna markiisii ayuu gacantiisa ku siiyay hilowle habeenkaas aad buu ugu riyaaqay sida fiican ee loo soo dhaweeyay hase yeeshee nin walba halkii bugtaa isagay balbashaaye hilowle intay iyada u sheekaynaysay isaga waxa maankiisa ka guuxayay sidii uu arooska u dhici lahaa iyo sidii ayan marnaba dhool isu seegi lahayn wuxuu go'aan ku gaaray intii kulanku soconayay inuu soo gabagabeeyo arrinta guurka iyo waqtiga aroosku dhacayo si kalsooni ku dheehan tahay ayuu ku yiri dhoolay hadda wixii ka dambeeya waxaynu ka howlgalaynaa sidii aynu aroos fiican u dhigan lahayn marka jawaabta iga sug maalmo waayo waxaan rabaa in arooskeenu noqdo mid heer sare ah waa arrin wanaagsan bay tiri iyadoo faraxsan waan sii tagayaaye habeen wacan buu yiri intuu istaagay oo kabihiisii iladay dhool ilaa laamigay sii dhaweysay hilowle markay ka soo laabatayna gurigoodii bay timid maalintii talaadada iyo arbacadii ku xigtayba shaqadiisii buu ku mashquulsanaa hilowle galownimadii khamiista ayuu isagoo duhurkiina laba indhood isu geynin gurigoodii ka baxay oo aabihii oo suuqbacaad baqaar ku lahaa aaday wuxuu rabay inuu aabihii kala tashado habkii arooskiisa u dhici lahaa wax kastana wuxuu u haystay inay si fudud u dhacayaan 4 daqiiqo markii uu odaygii inankiisii dhageystay wuxuu gartay in wiilkiisu talo u baahan yahay si waaye aragnimo leh ayuu ugu waramay isagoo ku leh aabe waxaan ku siinayaa talo hase yeeshee waxaan u malaynayaa inayan ku anfici doonin adigu nin yar baa tahay guurka laguma degdego oo haddii aad bari isqabataan alla idinkuma keenee waa inaad sii diyaarsataa qorshihii aad ku xalin lahayd si reerkaagu aanu u dumin xaaji xasan markuu taladaas bixinayay waxba u muuqday dhageystayaal qaybtii saddexaad ee sheekadii abaalmarin jacayl maanta inta ha inoo joogto